Itoobiya ayaa ciidamadii ugu badnaa waxay ku soo daabushay gudaha Soomaaliya iyadoo si qarsoodi ah ciidamadan looga soo gudbiyay xuduudka ay wadaagaan Hiiraan iyo maamulka Abiy Ahmed ee fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Sida xogaha aynu ku helnay afartii cisho la soo dhaafay waxaa ku soo qulqulaya gudaha Soomaaliya ciidamo hubeysan iyo gaadiid dagaal oo nuuca culus ah xambaarsanna hub culus oo ka soo baxay dhinaca Addis Ababa, waxaana ay ka soo gudbeen ciidamadaas iyo gaadiidka dagaalka gobolka Shabeelle ee Hiiraan xuduudka ay kala wadaagto dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana la sheegay in ujeedada ugu weyn ee ciidamadan ay tahay in Itoobiya ay ku xoojiso ciidamadooda ku sugan gudaha dalka. Sida xogo ay tibaaxayaan dadka deegaankuna ay xaqiijiyaan ilaa iyo 3,000 ay kor u dhaafayaan tirada ciidamada gaadiid kontumeeye ka badan ayayna wataan oo ay ka mid yihiin gawaarida lagu daabulo ciidamada ee loo yaqaano biijiyada. Waxaana arrintan ay abuuraysaa cabsi xoogan oo ku aadan duulaanka Itoobiya ay qorsheynayso, iyadoo arrintan loo sababaynayo in ay ku doonayso Itoobiya in gobolada dalka qaarkood ciidamadooda ay ku xoojiso si haddii ay dowladda federaalku iskugu daydo in ciidamada Itoobiya laga saaro gudaha dalka ay uga madax adeegto iyadoo awood ciidan gudaha dalka ku haysata. Arrintan weli wax wara kama aysan soo saarin dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS. waxaana ciidamadan Itoobiya ay keentay gudaha dalka ay ku soo aadayaan xilli ay socoto dhimista ciidamada midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya ka howlgala si 31 December marka la gaaro gabi ahaanba loo soo gabangabeeyo howlgalka ADMIS looguna wareejiyay amniga. Howlgal caalami ah oo midowga Afrika ay u diyaarinayso dowladda Soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka oo wada jira. Dhanka kale waxa arrintan ay imaanaysaa iyadoo filla Soomaaliya qorsheynayeen cutubyada ugu horeeya ee la dhimi doono ciidamada ADMIS wejiga xiga laga dhigo ciidamada dowladda Itoobiya maadaama labada xukuumadood Addis Ababa iyo Muqdisho ay isku dhacsan yihiin. xaajadooduna meel adag ay gaartay kadib duulaanka madax banaanida midnimada ummadda Soomaaliyeed ee ku soo qaaday xukuumadda Addis Ababa. Arrintan ayaa keeni karta iska horimaadyo, waxaana suurtagal ah in dowladda federaalka Soomaaliya jawaab culus ay ka bixiso. sidoo kale waxaa xogaha soo baxaya ay tibaaxayaan in sidan oo kale ay qorsheynayso Itoobiya in ciidamo qarsoodi ay ku geyso gobolada waqooyi gaar ahaan Lughaye Saylac halkaas oo aag dagaal hadda uga jiraan dadka deegaanka oo ku dhawaaqeen iska difaaci doonaan haddii ciidamada Itoobiyaanka weerar uga yimaado amaba isku dayaan inay soo degaan 20 kiiloomitir ee Muuse Biixi uga saxiixay gobolka Awdal in Itoobiya ay ka qaadato saldhig ciidan oo badda ciidamada badda ay ka samaysato sidoo kalena dekada ay ka dhisato. si kastaba dhaqdhaqaaqyadan ay samaysay dowladda Itoobiya ayaa uga sii dari kara xiisadda labada dhinac oo hadda meesha ugu xumeed maraysa, waxaana ay ku soo aadaysaa xilli Itoobiya ay dhanka kale faragelinta ay ku hayso gudaha Soomaaliya si ballaarisay oo xiriir toos ah ay la samaysatay maamulka fadhigiisu yahay Garowe ee Siciid Cabdullaahi Den uu hogaamiyo kadib markii madaxweyne Den uu ku dhawaaqeen gabi ahaanba maamulkiisu xiriirka u jaray dowladda dhexe ayna u dhaqmi doonaan sidii dowlad madax bannaan heshiisyana ay la gelayaan dowladaha cadaawaddu ay kala dhaxayso filla Soomaaliya. si kastaba waxaa isha lagu wada hayaa tillaabooyinka ay qaadi doonto dowladda federaalka Soomaaliya iyo waxa natiijo ay ka dhalan doona ciidamada ay Itoobiya sida qarsoodida ugu soo daabulayso gudaha wadankeena xilli Addis Ababa looga adkaaday dagaalka diblomaasiyadeed isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya uga gacan sareysay fadhiyada caalamiga ah doodihii la geeyay ku xadgudubka madax banaanideeda waa ku xadgudubka madax banaanida midnimada ummadda Soomaaliyeed uu kula kacay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaana fagaarayaasha caalamiga ah looga ceebeeyay. arrintan waxaa sidoo kale ay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay dadejinayso qorshaha ay gudaha dalka ku soo gaarayaan ciidamada Turkiga si loo fuliyo heshiiska difaaca ee dhaxmaray Muqdisho iyo Ankara, waxaana loo arkaa heshiiskaas oo la fuliyo inuu xakameyn karo qulqulka Itoobiyaanka sidoo kalena taaka adag u noqon karo duulaanka Abiy Ahmed uu qorsheynayo inuu ku soo qaado gudaha Soomaaliya iyo awoodda uu rabo inuu ku qabsado biyaha Muuse Biixi uu u saxiixay.